saxaabigan qiimaha badan magaciisa waa Khalid bin Saciid bin Kulayb. Uma malaynayo inuu jiro qof muslim ah oo aan aqoon cidda uu yahay. Rabbiga abuuray cirka iyo dhulka ayaa u doortay inuu marti qaado nabigiisa Muxamed markii uu u soo hijrooday magaalada Madiina. Nabiga suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Markii uu yimid magaalada Madiina, reer Madiinana waxa ay ku soo dhaweeyeen kalgacayl iyo jacayl xad dhaaf ah, ayaga oo qalbiyadooda u furay soo dhaweynta nabigooda nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Wadooyinka ay u istaageen hashii nabiga uu saarnaa, iyaga oo mid walba uu doonayay in uu marti qaado suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Mid walba oo ayaga ka mid ahna waxa uu lahaa rasuulka Allah agteena joog, rasuulka Allah agteena joog. Nabigana waxa uu lahaa ka leexda hasha way amran tahay. Hashaas sidii ay u socotay ayaa waxa ay hor istaagtay guriga saxaabi lagu magacaabo Abu Ayyub al-Ansari oo ah geesiga ay ku saabsan tahay qisadeena maanta. Guriga Abu Ayyub waxa uu ka koobnaa 2 dabaq. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayuu u diyaariyay dabaqa kore, balse nabiga waxa uu doortay dabaqa hoose in uu dego. Abu Ayyub isagana amarka nabiga ayuu qaatay oo meesha uu jeclaa ayuu dejiyay. Markii uu gabalka dhacay, Abu Ayyub iyo xaaskiisa ayaa qolka isugu tagay. Abu Ayyub ayaa xaaskiisa ku yiri, maxaan sameynay? Rasuulka Alle miyaa hoosteena seexinay oo inagana kor miyaan seexanaynaa? Rasuulka Alle korkiisa miyaan ku soo soconaynaa? Isaga iyo waxyiga miyaa kala dhex galaynaa? Haddaba waa halaagsanay ee ogow. Ayaga oo sidaasi u wareersan oo ka walwalaya arrintaasi waxa ay sameeyaana garala ayuu waagi ku bariyay. Abu Ayyub ayaa markaasi ku yiri nabiga, rasuulka Allah aniga iyo Ayyub oo ahayd xaaskiisa wax hurdo ah inagama soo dhicin xalay. Nabiga ayaa weydiiyay sababta, waxa uuna u sheegay in ay ka walwalsanaayeen in ay seexdaan guriga uu hoostiisa jiifo suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Nabiga ayaa markaasi qalbiga u dejiyay. Abu Ayyub amarka nabiga ayuu qaatay, waxa uuna yiri isaga oo ka sheekeynaya arrintaasi, habeenada ka mid ah ayaa waxa naga jabay weel ay ku jireen biyo annaga oo jiifna. Rasuulka Alle dushiisa biyihii ayaa ku dareeray, waxaana ka baqnay in ay ku dhibcaan. Aniga iyo Ayyub waxa aan qaadanay go' aan kaligiis ka haysanay dhar, waxa aan bilownay in aan habeenkii oo dhan ku qalajino biyaha si aysan rasuulka Alle u gaarin dhibic ka mid ah biyahaasi, isaga oo jiifay hoosteena hurdadana aanan uga kicin. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu joogay guriga Abu Ayyub muddo ku dhow 7 bilood. Markii uu dhisay masjidka ayuu u guuray halkaasi. Qiso kale oo cajiib ah, waxa uu yiri habeenada ka mid ah ayaa waxa soo baxay Abu Bakar Sadiiq radiyallahu anhu, waxa uuna soo aaday waxa uu masjidka ku arkay Umar. Umarna ayaa ku yiri, maxaa banaanka kuu soo saaray xilligan Abu Bakarow? Abu Bakar ayaa u sheegay in uu baahi darteed la soo baxay. Umar ayaa yiri, aniga baahi ayaa i soo saartay. Ayaga oo sidaasi ah ayaa waxa u soo baxay nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxa uuna ku yiri, maxaa idin soo saaray xilligan? Waxa ayna dhaheen, baahi ayaa idin soo saartay rasuulka Allah. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa yiri, Rabbiga nafteeda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartay, anigaba taas ayaa la soo baxay ee soo raaca. Nabiga iyo labadiisa saaxiib waxa ay tageen guriga Abu Bakar radiyallahu anhu. Abu Ayyub waxa dhaqan u ahaa maalin walba in uu nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee u dhigo cunto si marka uu yimaado uu u cuno. Haddii uu maalinkaas imaan waayana qoyskiisa ayuu siin jiray. Xaaskii Abu Ayyub ayaa albaabka ka furtay nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, waxa uuna yiri, Abu Ayyub. Isagana markii uu maqlay codka nabiga ayuu si farxad leh u soo dhaweeyay nabiga iyo saaxiibadiis. Abu Ayyub neef ayuu gooracay, xaaskiisana waxa uu ku yiri, cajiinka inoo diyaari. Nabiga iyo labadiisa saaxiib ayuu hor dhigay wax ay cunaan. Markii ay dhargeen, nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isaga oo ilmeynaya ayuu yiri, Rabbiga nafteeda ay awoodiisa ku jirto ayaan ku dhaartay, nimcadan waa tan qiyaamaha la isweydiin doono. Abu Ayyub radiyallahu anhu waxa uu aad u jeclaa jihaadka iyo in uu Alle dartiisa u shahiido. Jacaylka uu jihaadka u qabay wax aan kaga sheegi doonaa
qiso ay mudan tahay in lagu akhriyo ama lagu sheego maqaayadaha iyo goobaha ay iskugu yimaadaan dhalinyarta ama odayaasha, kuwaas oo waqtigooda ku dhammeeya maqaayadaha iyo maalayacniga. Kaagama sheekeynayo wiil yar oo 20 jir ah ama 30 jir ah ama xitaa oday 60 gaaray, ee waxa aan kaaga sheekeyn doonaa qisada 80 jir odaynimada dhaafay, sidaas ay tahayna weli u soo taagan jihaadka iyo inuu Alle dartiis u dhinto. Xilligii uu amiirka ahaa Mucaawiya bin Abi Sufyaan radiyallahu anhu ayaa waxaa jihaad u baxay ciidan uu hogaaminayay Yaziid bin Mucaawiya, kuwaas oo ay ku jireen saxaabo badan oo ay ka mid ahaayeen Xuseen bin Cali, Cabdullaahi bin Cumar, Cabdullaahi bin Cabbaas, Cabdullaahi bin Zubayr iyo Cabdullaahi Cumar bin Caas, iyaga oo duulaan ku qaaday caasimadda boqortooyada Ruum iyo Qustantiniya. Abu Ayyub radiyallahu anhu isaga oo 80 jir ah ayuu diiday inuu jihaadka ka haro. Libaaxyadii muslimiintana ay u oomanayeen dhiigga gaalada Roomaanka. Markii ay gaareen caasimadii reer Yurub, ciidankii muslimiinta iyo kuwii gaaladana ay iska hor yimaadeen, ayaa waxa ay hal mar arkeen nin wejiga u duuban yahay, faraskiisa cadna kula dulduulaya hawada sida gorgor ugaarsi ku jira, dhanka cadowgana sida duufaanta ugu socda. Gaaladii Roomaanka waxa ay ku wareereen waxa indhahooda ay arkaan, run iyo riyo waxa ay tahay. Ciidankii muslimiinta indhaha ayay la raaceen, aan marnaba dhimashada ka baqayn, sida tooska ahna ugu socda dhanka geerida. Waaba Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu oo 80 sano kor u dhaafay, isaga oo la moodo wiil yar oo 20 jir ah oo hadda soo koraya. Abu Ayyub waxa uu qaatay seeftiisii si uu ugula dagaalamo gaalada, ilaa markii dambe uu dareemay in ay dhimashadiisa soo dhowaatay. Markaas ayuu hogaamiyihii muslimiinta ka dalbaday in uu salaan ka gaarsiiyo ciidanka muslimiinta oo ayna ku aasaan meel u dhow Qustantiniya. Hogaamiyaha muslimiinta Yaziid bin Mucaawiya isagana waxa uu fuliyey codsiga saxaabigaas qiimaha badan, iyaga oo ku aasay meel u dhow derbiyada Qustantiniya, waana ka qaaday salaanta. Saxaabiga rasuulka oo Alle ka raali noqdo hana kugu martiqaado sida aad rasuulkiisa u martiqaaday iyo si ka wanaagsan. Intaas ayuu ku ogyahay muuqaalkeena maantay. Haddii aad halkan la soo gaartay, fadlan ka mid noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran, leegna saar muuqaalka, siina sheer gare oo la wadaag saaxiibada sidoo kale u jecel. Intaas iyo intaan ku kulmayno muuqaalka xiga kan, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Amaana Allah.